ubax laga waraabsho waagii baryaba ubax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkii. Warahmatullahi wabarakatuh. Waa casharkeena labaad ee barashada aaladda scientific calculator-ka. casharkeena labaad haddii Allah uu ogolaado waxaan ku sharixi doonaa labada scientific ee kala ah scientific-ga cadaanka ee loo yaqaano ES-ka iyo scientific-ga madowga ee loo yaqaano MS-ka. labada scientific waan ku wada sharixi doonaa saacadii waxaa ku horeyn doona scientific-ga cadaanka ah. casharkeena labaad qaybta koowaad waxaan ku baran doonaa noocyada bottom-iskan iyo magacyada loo yaqaano. bottom-iskan magacyada loo yaqaano waxaa ugu horeeya bottom-ka la yiraahdo on k, waa bottom-ka scientific-ga uu kasoo isdaarmo. waxaa ku xiga bottom-ka la yiraahdo mood k, waa bottom-ka scientific-ga laga xusho shaqada lagu qabanayo. qaybtana waxaa la yiraahdaa cursor-ka, waa qaybta scientific-ga laga doorto bidix, midig, kor iyo hoos. bottom-kana waxaa la yiraahdaa alpha k, waa bottom-ka laga xusho xarfaha ku qoran farta gaduudka ah a b c iyo wixii la midka ah. bottom-kana waxaa la yiraahdaa shift k, waa bottom-ka laga xusho xarfaha ku dul qoran ee kalarkiisa leh bottom-iskan. shift k waa bottom-ka ugu shaqada badan scientific-ga inta la isticmaalayo. bottom-iskan madowga ah waxaa la isku yiraahdaa function keys, waa shaqada ugu badan scientific-ga ee lagu qabto bottom-yada la isticmaalayo. bottom-ka waxaa la yiraahdaa all clear k, waa bottom-ka laga tirtiro shaashada wixii saarnaa oo dhan. bottom-kana waxaa la yiraahdaa delete k, waa bottom-ka hal loo tiro wixii shaashada saaran scientific. afartan bottom waxaa la yiraahdaa operation k, waa afarta xisaabfal bottom-iska la yiraahdo. bottom-kana waxaa la yiraahdaa equal k, waa bottom-ka ekaysiya xisaabtii aad gelisay iyo jawaabta kuu soo baxaysa. bottom-kana waxaa la yiraahdaa last answer k, waa bottom-ka jawaabta ugu dambeysay aad ka heli kartid. bottom-kana waxaa la yiraahdaa exponent k, waa bottom-ka jibaar ahaan xisaabta la geliyay. bottom-iskan cadaanka ahna waxaa la isku yiraahdaa numeric k, waa nambarada scientific uu leeyahay. waxaa noogu xiga scientific-ga sida loo soo isdaaro. scientific-ga waxaa loo soo shidaa inaad taabatid bottom-ka ay ku qoran tahay on k, kadibna cursor-ka iyo xarafka d oo display u taagan shaashada ay kaaga soo muuqdaan. waxaa ku xiga scientific-ga sidee loo damiyaa. scientific waxaa loo damiyaa inaan taabano shift kadibna aan taabano all clear k ama off, kadibna scientific sidaas ayuu ugu dami doonaa. waxaa noogu xiga scientific-ga sidee loo reset gareeyaa ama loo clear gareeyaa. markii aan rabno inaan clear gareyno waxaan taabanaynaa shift kadibna waxaan taabanaynaa 9 ama clear, kadibna waxaa noo soo bixi doonaa setup, memory iyo all. saddexdan option mid walba waa masaxid laakiin way kala leeyihiin. setup haddii aad taabatid oo number 1 ah waxaa kuu masaxmi doona ama kaa tirtirmi doona wixii aad kasoo dooratay mood-ka oo scientific-ga wixii aad mood kasoo dooratay ayaa kaa tirtirmi doona. lambarka labaad oo memory-ga ah waxaa kaa masaxmi doona haddii aad taabatid wixii kugu kaydsanaa xarfaha a b c iyo wixii la mid ah. lambarka saddexaad oo all ah haddii aad taabatid waxaa kaa masaxmi doona dhammaan scientific-ga wixii kugu kaydsanaa. okay, mid walba markaad taabatid waxaad taabanaysaa 2 mar equal. haddii aan baraaweyno lambarka saddexaad oo all ah waxaan taabanaynaa equal ama ac. haddii aan rabo shaqada in la iisii wado waxaan taabanayaa yes oo equal ah. haddii aan rabo ac oo cancel u dhiganta oo ah haddii aan rabo scientific in shaqada laga joojiyo waxaan taabanayaa equal si shaqada ay usii socoto, kadibna waxaan sii dhammaystirayaa equal. okay, waxaa noogu xiga qaybtan kale ee la yiraahdo brightness-ka ama iftiinka scientific-ga sida loo dheereeyo ama loo gaabiyo. marka aan rabo scientific-ga brightness-kiisa inaan dheereeyo ama gaabiyo waxaan taabanayaa shift kadibna waxaan taabanayaa mood-ka
kadibna waxaan taabanayaa kaasarka qaybta hoose, waxaana dooran doonaa number 6 oo ay ku qoran tahay contrast. number 6 marka aan taabto waxaa ii soo bixi doona light-ka iyo dark. light haddii aan taabto dhinaciisa oo aan qabto geesta light ay ku qoran tahay, scientific-ga iftiinkiisa wuu tegi doonaa oo shaashad cadaan ayaa soo hari doonta. haddii aan rabo inaan iftiinkiisa u celiyo waxaan taabanayaa dhanka midigta ah ee qaybta kale ee dark ay ku qoran tahay. okay, haddii aan rabo inaan dark ama iftiinka mugdiga inaan yareeyo ama aan siyaadiyo waxaan taabanayaa dhanka midigta ah, kadibna iftiinka wuu yaraanayaa hase ahaatee mugdi ayaa siyaadaya. waxaan taabanayaa dhanka leftiga si iftiinkii uu usoo laabto. hadda scientific-ga iftiinkiisii waa balanced, waxaan uga soconaynaa sidaas. waxaa noogu xigta scientific-ga sidee wax loogu kaydsadaa ama storing sidee loogu sameeyaa. scientific-ga markaan rabo inaan wax ku kaydsado waxaan gelinayaa numberka aan ku kaydsanayo scientific-ga. tusaale ahaan waxaan ku kaydsanayaa 1 2 3 4 5 6. okay, markaan rabo numberka inaan ku kaydsado, numberkii aan geliyo waxaan taabanayaa shift, kadibna waxaan taabanayaa recall, kadibna waxaan taabanayaa xarafka aan ku kaydsanayo oo ah a, kadibna sidaas ayuu u kaydsani doonaa. haddii aan rabo inaan kaydsado number kale waxaan taabanayaa numberkii aan rabo inaan kaydiyo oo ah 7 8 9 4 5 6. kadibna waxaan taabanayaa shift, kadibna waxaan taabanayaa recall, kadibna waxaan taabanayaa xarafka b oo ah xarafka aan ku kaydsan rabay. haddii aan rabo scientific-ga wixii aan ku kaydsaday inaan mar kale dib u helo waxaan taabanayaa recall, kadibna waxaan taabanayaa a oo ah xarafka ugu kaydsanaa. haddii aan rabo xarafka b wixii ugu kaydsanaa waxaan taabanayaa recall, kadibna waxaan taabanayaa xarafka b. okay, sidaan hore u sheegnay waxaan ku sharixi doonaa casharadeena soconaya 2 scientific oo kale ah scientific leeral ms-ka oo kan madowga ah iyo scientific es-ka ah ee cadaanka ah. casharkeena labaad ee maanta waa isku mid scientific-ga sida loo geliyo casharkeena labaad qaybaha aan ku qaadanay, hase ahaatee waxay ku kala bedelan yihiin 2 qaybood oo keliya. qaybta koowaad waa scientific-ga sida loo receipt-ka ama loo clear gareeyo. marka aan rabno scientific-gan madowga ah inaan clear gareyno waxaan taabanaynaa shift, kadibna waxaan taabanaynaa mode-ka, kadibna waxaa noo soo bixi doonaa memory call oo number 1 ay ku qoran tahay, mode oo ay ku qoran tahay number 2 iyo number 3 oo ay ku qoran tahay all. haddii aan rabo saddexdan option mid ka mid inaan doorto numberkiisa ayaan taabanayaa. number 1 haddii aan taabto waxaa iga dileydmi doona ama iga masaxmi doona wixii aan ku kaydsaday xarfaha a b c iyo wixii lamid ah. haddii aan taabto mode-ka oo number 2 ah waxaa iga masaxmi doona wixii aan kasoo doortay mode-ka oo iga tirtirmi doonaan. haddii aan taabto numberka 3 oo all ah waxaa iga masaxmi doona wixii iyo dhammaan wixii aan ku kaydsaday scientific-ga ama kusoo shaqeeyay. okay, waxaan taabanaynaa numberka 3 oo all ah, kadibna waxaa soo bixi doona receipt oo all ah. receipt all waxaan taabanaynaa equal, kadibna waxaan sii taabanaynaa equal. waxaa sidaas iga masaxmi doona dhammaan scientific wixii ugu kaydsanaa. qaybta labaad oo ah brightness-ka ama scientific iftiinkiisa. haddii aan rabo scientific iftiinkiisa inaan dheereeyo ama gaabiyo waxaan taabanayaa 6 mar ayaa waxaan taabanayaa mode-kayga ilaa ay kasoo baxdo number 2 oo ay ku qoran tahay contrast. waan taabanayaa ilaa ay kasoo baxdo number 2 oo ay ku qoran tahay contrast. waxaan taabanayaa number 2, waxaa ii soo baxa light iyo dark. light-ka haddii aan rabo inaan yareeyo waxaan taabanayaa dhanka bidixda ah, waxaan xoog u haynayaa dhanka bidixda ilaa iftiinku uu yaraado. hase ahaatee nasiib darro scientific-yada baterigooda way u kala bedelan yahay. haddii uu scientific-ga iftiinkiisu kuu geebsami waayo waxaa laga yaabaa baterigaagu inuu daciif yahay. waxaa ku xiga dhanka kale haddii aan rabo inaan dark ama mugdi aan ku furo waxaan taabanayaa dhanka midigta ah, kadibna scientific-ga wuxuu noqonayaa madow ama dark. haddii aan rabo inaan color balance-ga ama scientific-ga shaashadiisa caadiga kusoo celiyo waxaan taabanayaa dhanka
bidixda ayaan qabanaya. sidaas ayuuna scientific color balancegiisa ugu soo laabanaya. waad ku mahadsan tahay daawashada casharka labaad. la soco baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibka